sanad kasta 3 Noofembar dunida waxaa lagu qabtaa xuska munaasabadda hal maalin caafimaad One Health Day taasoo looga leeyahay xoojinta wacyigelinta caafimaadka bini'aadanka xayawaanka iyo deegaanka. ujeeddada ugu weyn ee xuska hal maalin caafimaad waa in la helo fursad lagu horumarinayo caafimaadka bulshada isla markaana lagu kordhinayo wacyiga ku saabsan muhiimadda caafimaadka deegaanka guud ahaan. haddaba jaamacadda Sidcoed oo ka duulaysa kor u qaadidda wacyiga bulshada ee dhanka caafimaadka ayaa qabatay munaasabadda xuska hal maalin caafimaad oo diiradda lagu saarayay xoojinta kor u qaadidda wacyigelinta bulshada ee xanuunada saamaynta ku leh noloshooda. barnaamijkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey hormuudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda Sidcoed waxaana munaasabaddan ka qayb galay khabiiro kala duwan oo soo bandhigay muhiimadda ay maalintani u leedahay bulshada iyo wacyigelin guud oo ku saabsan caafimaadka bulshada guud ahaan. gudoomiyaha jaamacadda Sidcoed injineer Cabdixakiin Xuseen oo munaasabadda ka qayb galay ayaa goobta ka sheegay in muhiimadda jaamacaddu ay u qabanayso barnaamijkan ay tahay sidii loo dhisi lahaa wacyiga bulshada ee ku aadan caafimaadka bini'aadanka. wuxuu ka hadlayaa seebaa loo helaa bini'aadan caafimaad qaba. bini'aadan caafimaad qaba hadda waxay ogtihiin bini'aadanku innagu waxaynu ku noolnahay adduun baynu ku noolnahay adduunkeena kana surrounding baa jira waxyaalo aynu ku hareeraysan ama waxyaalo waxaa jira aynu la falgala baa jira. waa ogtihiinoo waa neefsanaa oxygen baynu qaadanaa kaarboon baynu sii daynaa waxbaynu cunnaa iyo hilib baynu cunnaa furuud baynu cunnaa dhirtaynu cunnaa. waxyaalahaas aynu cunayno haddaysan iyana caafimaad ahayn hawada aynu nuugayno oxygenkaas aynu qaadanayno hadduusan caafimaad ahayn isagana kuma noolaan karno. total kuma nool waa idinka arkay kuleelka yar magaalada Boosto ka dhaca bayna waxa weeye waa cararnaa waa ka cararnaa soo ma arag bal ka waran haddana hawadii aan nuugaysay oo kaarboon ah oo oxygen biyo aadan helin soo disaster ma oxygenku waa waxa nolosha haddii waxa weeye weydo biyo la'aan waa noolaan kartaa dhowr maalmood waa suuragal laakiin oxygen 3 daqiiqo 5 daqiiqo kama maqnaan karo. qofka ugu fiican waa isku celiyaa 3 daqiiqo kama maqnaan karo 2 daqiiqo qofka ugu fiican waay hadduu ka maqnaado oxygen taas waa dhimanaysa soo wax isku hayno wax la isku hayo soo xad ma haddana oxygenkaasi waa idinka arkay hawadaas uu iska jira wax iska naajira leh ilaahayna siiyey ka war haddaynu inagu sabab u noqono inaynu oxygenka aynu nuugayno qaadanayno haddaynu oxygenka inagu sabab u noqono inaynu ka dhigno kaarboon ama sumayno oo markaynu inhaling samaynayno neefsanayno neef jiidayno aynu sun jiidno ka waramo soo riski ma ha waa riski ka warama xoolaha aynu hilibkooda cunno haddii inagu aynu sabab u noqono inaynu qashin siino oo dhulkii bini'aadamka ku nool qashin ka dhigno bini'aadamka qashimayno oo bini'aadamka qashin noqoto oo xoolihii wax cunaa oo wasakha cunaan ana maxaa cunaysaa markaa wax wasakha cunaysa kugu soo laabanaysa marka bini'aadda inay nadiif tahay ku noolnahay waa waajib inaa wada saaran way kulligeen.